الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقبول إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكرة ونعم نعمين كسان سوكو بكرين رب سبحانه وتعالى قرآن كسوحو كليه وأما بنعمة ربك فحدث. إخواني، waxaa ilaahay mahadiis ah anagoo maanta jamaaca cisho aan ku dukanay oo aan joogno masjidka. ikhwaani, kelimada sidoo hore loo cilaamiyey waxay ku saabsan tahay sideen ugu faa'iidaysanaynaa ramadaanka ka hor maxaa la sameynayaa. waad ogtihiin sabtida hadda soo socoto waxaa laga yaabaa inay noqoto ramadaan. maanta waxaa waaye sabtiga ku jira asbuuc ayaa nooga haray ramadaanka. marka cibaado weyn aa noo soo socto. marka su-aasha waxaa waaye sideen uga faa'iidaysanaynaa cibaadadan jaaniskan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey. waxaa la rabaa ikhwaani yay nagu dhaafin bishaan waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka aad taqaanaan oo walaalaheena ah oo sanadkii hore nala soomay ajaaniskan maanta aan helin oo adduunkan kala laabtay oo qabriga aade. ilaahay ha u naxariisto. marka adiga oo ifiirsanaayo iyo annaga oo dhanba waxaa la rabaa jaaniskan inaan ka faa'iidaysano, waayo bishaan waa bil oo fadli badan waayo. haddii ilaahay na gaarsiiyo inta ramadaanka aan la gaarin waxaa layska rabaa kow in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo laabto. toobada waa furan tahay, bani aadanaa leeyahay, wax kasta waa naga dhaca. ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun. kow waxaa la rabaa inaad tooba la imaadid. marka tooba aad la timaadid haddana waxaa lagaa rabaa dadka walaalaha ah oo adig wax adig aad u qabtid inaad iska cafisid adoo qalbigaaga nadiif ah. waxaa la rabaa bisha inay ku dhalato. haddii qof walaal ah oo wax idinka dhexeeyaan hadda intii ramadaanka aan la gaarin taleefon u dir, waxaa leedahay walaalow waxbaa la dhexmaray, wax kuuma haysto, cafis ka dabo, ceeb ma aha. waliyacfu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkii anas binu malik, nabigu wuxuu yiri laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwaana. yaa isxasdin, yaa isku xanaagin, yaa dhabarka isku jeedinin, noqdo kunuu cibaad allah. mu'miniinta waa walaalo, inama almu'minuuna ikhwa. marka lambarka saddexaad oo bisha ka hor waxaa la rabaa inaan ducaysano. habeenkii bisha markay dhalato allahuma ahillahu calayna bilamni waliimaan. nabigu wuu ducaysan jiray, asxaabta u tahniin jiray. waxaa laidin imaaday shahr, ataakum shahru ramadaan. waxaa la rabaa in macnaha oo bishaan haddii ilaahay bana soo gaarsiiyey, ilaahay adaa mahad iska leh aa lagaa rabaa. alxamdu lilah. ramadaan isbuuca ka dhiman inaan gaarayno in kala ilaahay ayaa og. markaan ducaysano bishi marka waxaa la rabaa inaan saas aan ugu faa'iidaysano. fadligan haddaa wax yar aan ka taabto, ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. kutiba calaykum asiyaam, waxaa la fardi yeelay siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. ayadan waxaa cad dadkii naga horeeyey way soomi jireen. ramadaanku wuxuu ku dhexsiinayaa ilaahay taqwadiisa.
marka ikhwaani ramadaanka marka waxaa la rabaa bishaan in laga faa'iidaysto. ilaahay suuratu lbaqara wuxuu ku leeyahay faman shahida minkum ashahra falyasum, qofkii bisha korkiis ay ku dhalato falyasum buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ha soomo. marka waxaa la rabaa marka bishaan in jaaniskan aan ka faa'iidaysano ikhwaani. ma hubno ramadaanka soo socda inaan gaarayno iyo inka ilaahay ayaa og. haddii jaaniskan oo ilaahay ku gaarsi waxaa la rabaa adduunyadaada waxaa la rabaa inaad ka soo jeesatid oo cibaadaha aad u soo jeesatid aa la rabaa. bishaan waxaa ku dhahay laylatul qadri khayrun min alfi shahr. fiir kun bilood wixii camal fali lahaa halabina qaadana. jaaniskaas waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysatid lidaliyay kugu dhaafin. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. marka ramadaankan waxaa la rabaa in ikhwaani aan ka faa'iidaysano dhammaan